kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waxaynu joognaa magaalada Ankara ee wadanka Turkiga waxaan doonaynaa inaynu wax badan ku ogaano guryaha iyo qaabka loo iibiyo wadankan iyadoo dad badan ay isweydiinayaan qaab noocee ayay noqon doonaan guryaha sidee dadku ugu noolaan doonaan maxaa ka dhaxeeya cilaaqa ah qaabka guryaha looga iibsado wadamada reer galbeedka iyo wadankan Turkiga arrimahaas oo dhan ayaan jecelnahay dadka inaynu u sharaxno oo aanu markaa wixii xaqiiqa u soo bandhigno haddaba waxaan booqanaynaa shirkadda Guuleed Real Estate xarunteeda magaalada Ankara annagoo markaasi la hadli doona mas'uuliyiinta shirkadda si ay bal faahfaahin guud nooga siiyaan qaabka ay wax u socdaan wadankan iyo sida guryaha loo gato waatahay daawadayaal sidaan hore idinkugu sheegay waxaan kula kulmaynaa xafiiskiisa agaasimaha shirkadda Guuleed Real Estate ee xarunteedu tahay magaalada Ankara ee wadanka Turkiga mudane Farxaan Dhoore oo isagu kamid ahaa dadkii sida weyn uga shaqeeyay in Soomaalidu ay halkan soo degto Farxaan marka hore ku soo dhawow telefishinka Somali Cable marka labaad waxaad noo sharaxdaa adoo soo koobaya sida ay kugu dhalatay inaad halkan shirkad noocan ka hirgeliso iyadoo la ogyahay dadka Soomaaliyeed inay dhowr meel guryo ka gateen oo ay degeen sida Kenya, Imaaraadka iyo wadamo kale arintan maxaa kugu dhaliyay bismillah waxaan rabaa ilaaha mahad iskale subxaanahu wa ta'ala marka ka bacdi waxaan rabaa inaan mahad celiyo walaalkeen ama saaxiibkeen Cabdulqaadir Maxamed Cashar Nadaara iyo TV-ga Somali Cable iyo shaqaalihiisaba inaan halkan salaan iyo mahad celina u marsiyo hadii aan inta uga gudbo runtii waa su'aal adag hadii la yiraahdo maxaa kugu dhaliyay inaad Turkiga shirkad ka samayso maalgelin ku samayso laakiin waxaan rabaa inaan imaaday sanadkii hore 2018 inaan wadanka Turkiga magaalada Ankara imid wixii koobaad oo igu soo dhac waxay ahayd in meeshan Soomaali ay imaan doonto waxaan sameeyay office-kaas waxaan ku bilownay inaan ummadda service gareyno Soomaaliyeed ka bacdina waxaan aragnay inay fursad jirto waxaan ka dhignay ka bacdi shirkad la yiraahdo Guuleed Real Estate runtii waxyaalaha aan raadinaynay ma inaan ahayn business kaliya waxaan maanta leenahay farxad ka badan business iyo lacag waxaan leenahay macaamiil fara badan oo Soomaaliyeed iyo macaamiil ka sii fara badan oo Turkiga marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan wadanka Turkiga imaanay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa ummadda Soomaaliyeed oo runtii anaga lafteena sumcadeena oo idaacadaha ugu horeeyaan iyo wariyaasha qaaliga oo ka mid yahay wariye Cagmadhiga iyo wariye Nadaara oo runtii ayaga laftoodu aad iyo aad bulshada Soomaaliyeed intii aan hore noo aqoon baray anaguna fursad ka faa'iideysanayna waxaan sameeynaa in ummadda Soomaaliyeed u noqono Google marka shirkadeenu ma ahan iibka iyo dhismaha guryaha kaliya ma ahan waa tahay su'aasha kale aan doonayo inaan ku weydiiyo waxay tahay intaynaan guryaha iyo qiimahooda iyo u galin dhaqan kala duwan ayaa ka jira adduunka markii guryaha la iibsanayo anigoo kale Ingiriiska ka imid dad badan oo Ingiriiska jooga waxa laga yaabaa inay isweydiinayaan su'aashaas guriga markaa iibsato wadanka Ingiriiska iyo wadamo kale oo reer galbeed ah waqti kooban baad yeelanaysaa kadibna waa in gurigii aad dib u gadaa ama waxa kala wareegaysa dawladda marka qofka halkan guriga ka gata sidii Soomaaliya oo kale oo qofku ilaa abid uu iska haysanayo ilaa uu ka dhinto ama uu iska gado isaga iskiimiya mise waa sida dhaqankii reer galbeedka oo kale waqti xadidan buu qofku gurigu yeelanayaa aad baad maasantahay Nadaara waa su'aal aad u qiimo badan waana su'aalaha ugu muhiimsan su'aalaha la weydiiyo inta aan u gelin waxaan rabaa marka hore inaan wax yar dul maro sharciyada wadanka Turkiga marka aad timaado aad guri ku iibsan karto sida adigu aad wadanka ku timid oo kale qof kasta oo si sharci ah ku soo gala wadanka asagoo passport dhalasho ay aan ahayn refer document iyo xaq wuxuu leeyahay wadanka inuu deganaansho ka dalbado isla markaasna guri uu ka iibsado markaad wadanka Turkiga rabto inaad guri ka gadato hadii aad tahay qof ajnabi ah
tilaabada ugu horeysa la qaadaya waxa weeye expert niman la yiraahdo oo dawladda ka socda iyo loo diraya guriga waxay qiimeyn ku soo sameynayaan gurigaas iyo qiimaha uu astaahilo iyo waxa gurigaas uu yahay iyo safety-giisa waqtiga la dhisay hal buugay ka soo qorayaan ka bacdina waxa wax iibiya maxkamadda oo maxkamadda gobolka xaafadda degmada aad ka degan tahay maxkamadda ayaa ku taala loogu talagalay qaybta waaxda dhulbixinta ayada ayaa iibisa maxkamadda horteeda ayaad imaanaysaa xaakim ayaa imaanaya ninkii milkiilaha ama shirkadii milkiilaha iyo qofkii ganacsadaha ayaa imaanaya halkaas waxay ku qaadanayaan wax sharci ah oo aan mar dambe laba qofood waxba iska weydiin doonin waxa ka sharciyada dhinaca milkiyada waxay la mid tahay Soomaaliya oo kale ma laha wax limida ama sida laysinka loo yaqaan oo kale maahan abadiyo waaye qofkii Ilaahay gaarsiiyo waa tahay marka hadaynu taa ka gudubno guryo ayaa iminka dhisteen oo xariga laga jaray guryahaas runtii Soomaaliya iyo meel walba guryuhu isku qiimo ma dadka Soomaaliyeed laakiin waxay aad u danaynayaan Turkiga guryihiisu way jaban yihiin marka loo eego meelaha kale arinta maxaad dadka uga sharaxaysaa ma dhabba in guryuhu qiimahoodu jaban yahay mise waa qiimo la mid ah qiimaha guryaha kale sida Dubai meel kasta ayuu la mid yahay waa ma santahay waa su'aal aad muhiim ah sida in badan oo adiga aad ka mid tahay arkartid waxa halkan ku yaala guriga quality leh high quality ah adduunyadana sida caadiga ah waxa weeye shayga quality-ga ah adduunka waa isku qiime laakiin laba arrimood iyo sabab u noqota in qiimo dhimis ama beec jaban uu jiro qodobka koobaad waxa weeye xagga canshuurta qodobka labaad oo canshuurta yar way keentaa qodobka labaadna waxa weeye shaqaalaha shaqada qabanaya gacanta ay ku qabanayaan iyo kala qaalisan tusaale haddaan ku soo qaato haddii maanta surwaalkaaga uu dilaaco adoo jooga waddanka Sweden waxaad ku talaysaa harqaan ka qaadanayaa lacagta aad ka bixisa lacag ka badan laakiin haddaad Turkiga joogto hal liiro oo u dhiganta hal senti yaa lagu talay waxaad dareemaysaa marka gacanta yaa raqiisan sidaa darteed guryuhu aad iyo aad u jaban yihiin markaad fiiriso waliba ayagoo standard ah waxaad indhaha ku aragtay Cabdulqaadir Nadaaro guryo aan huba inaad hadda ka hor adduunka ku arag maalintii koobaad aan kugu soo dhaweynay oo aan ku tusinay kulli aniga adduunyada intaan joogay dhul badan aan maray guryahaas guryo la mid ah oo ku quality oo ku quruxa oo ku maaratay space wali ma aanan arag marka qiimaha ay joogaana kulli wax badan waad ka soo aragtay adii laftaadu dabcan guriga ku jiray marka aad iyo aad guryo aad iyo aad u raqiisa oo quality leh oo sharaf leh iyo leeyihiin waddanka Turkiga waa tahay habeen hore waxaan ka qayb galay munaasabad la yiri isdhexgalka bulshada Turkida iyo Soomaalida dadkii meesha joogay qaarkood oo aan la sheekaystay waxay ii sheegeen xoogaa inuu jiro isfahmi waa dhinaca dhaqanka labada dhinaca adinka ayaana soo qaban qaabiyay arintaas marka sababta adinku aad u soo qaban qaabiseen maxay tahay ma adinka ayaa mas'uuliyad gaar ah iska saaray maadaama dadka guryaha ugu badan ka gaday aad tihiin mise dawladda ayaa idin xil saartay maxayse tahay isfahmi waaga dhaqanka la sheegayo waa su'aalayeedana muhiimadeeda leh waxyaalihii markii hore nagu dhaliyeen xafiiska furno iyo ahayd inay imaan doonto kala duwanaansho xagga dhaqanka ah laakiin waxaan rabaa in ummadda Soomaaliyeed ama intii luqad Soomaaliya ku hadashay xataa aan Soomaali ahayn u sheego ummad la darso oo waddanka Turkiga ka daris fiican ma jirto laakiin laba qofood oo aan weligood macaamilin wax badan kala duwan yihiin waxyaalaha lagu kala duwan yahaana waa waxyaalo yar yar oo hadda arta la xallin karo tusaale ahaan oo kale waxyaalaha la isku dhibsado waxa kamid ah unsiga waxaad ogtahay Soomaalida unsiga iyo catarro culus iyo waxaas isticmaalaan marka guriga hadii unsi laga shido dabaqa u koreeyo dabaqa u hooseeyo isku sii u saameynaya markii dadka Turkida kula degan yihiin waxay leeyihiin guriga ma dabaa ka dhacay waa maxay isbedelkaani waxaan maxay yihiin dadku laba qaybood qayb waxay ka yimaadeen qurbaha way yaqaaniin wayna ku sharfayeen runtii shuruucda looga dhaqmo nolosha standardka maanta oo dadka bilaadanka waxay xilliga seexdaan iyo xilliga soo toosaan xilliga hadlaan iyo xilliga hoos u hadlaan iyo xilliga kor u hadlaan ay leeyihiin way yaqaaniin xilliga aan dushashka la furin oo la qubaysan dad qubaysan hoos la isku gaabiyo aad baa loo garanaya marka waxyaalaha kale ku fiican waxay tahay caruur isdisha lama yaqaan iyo dagaal lama yaqaano waddankan waa sidoo kale dagaal lagama yaqaano waxa laga yaabaa marka ummadda Soomaaliya ka timid in waxyaalaha qaar ku cusub yihiin laga yaabaa oo
in unsiga la dhibsado maalan oo kale unsiga oo kale iyo catarada culus waxa keenaya hawadii Soomaaliya iyo hawadan isku mid maaha hawadan waxaad u imaanaysaa qofa meel sigaar ku cabay qac iyo meeshii taageerada u imaanay unsiga la shaday qac iyo meeshii jooga waayo hawadan hawa sarawa sida darteed marka waxaan ugu talagalnay marka kulamadan aan qabanno inaan ummadii ku wacyi gelino maadaama aysan jirin cunsuriyad diimad ma jirto cunsuriyad midabna ma yaqaanaan Turkiga waa dad han leh oo aaminsan caalamka islaamiga oo dhan ay aabayaashoodii odayaashoodii iyo dawladda islaamiga meesha ugu dambeysay ay tahay aaminsan yihiin saasay rabaan waliba dadku inuu ugu yimaado marka aad iyo aad ay ugu maasan yihiin laakiin way jirtaa in la kala duwan yahay waxyaalaha lagu kala duwan waxyaalaha la xallin karo weeye saasaan ugu istaagnaa annagana insha Allah waa tahay dad badan waxay rabaan inay wax ka ogaadaan qaabka qofka markuu guri gato uu ehelkiisa ku soo dejin karo halkan dadku waa laba qaybood qaar waxa laga yaabaa dhalashooyin kale oo wadamo kale Yurub inay haystaan qaarna inay Soomaali iyagoo jooga ay rabaan inay guri inta iibsadaan caruurtoodii inay soo ka haystaan oo halkan keenaan marka adinku shirkad ahaan ma jirtaa qayb aad ka qaadataan sidii dadkaas ay u heli lahaayeen deganaansho iyo fiisooyin mise qolooyin kala ku xirtaan mise guriga hadda ka gadaan meesha uga tagtaan oo qofkii sidii aad wax ku doonan lahayd ku doonaa tiraahdaan arinta bal waxaan rabnaa inaad noo sharaxdo dadku waxa ay heli karaan iyo sida ay ku soo degi karaan guriga markay idinka iibsadaan waa ma sha Allah aad u maasantahay waa su'aalaha qaali ah lama rabo ayadan lafteedan oo kala qaado qodob koobaad waxa weeye qof wuxuu rabaa inuu dhalasho qaato qofaaba wuxuu rabaa inuu baasaboorka Turkiga qaato asagoo lacagta uu ku qaadanayana dhulka la baxayo ku degay qofkaas marka wuxuu leeyahay deganaansho wadanka iyo wuxuu leeyahay dhalashadii wadanka wuxuuna gadanayaa guri ama hanti maalgelin 250,000 gaarsiisa qofka noocaasa shaqadiisa adduunka meesha rabaa joogo lawyer iyaan u dhiibaynaa iyo loo dhiibaa lawyerkaas ayaa processka bilaabaya lawyerkaas iyuu ka sugayaa baasaboorkii dhalashadaha dalku galkii iyo wixii oo dhan hadduu xataa banaanku maqan yahay waa inuu 250,000 oo dollar waa inuu guri ku gataa ama dhul banaan ku gataa laakiin shaqadiisa waa shaqo lawyerka iyo dawladda kaliya u taala dadka kalena waxa weeye waa dad iibsaday guriyo yar yar oo raba ilmihii ama reerkii oo jira Soomaaliya inay keenaan baasaboorada ay Soomaaliya yihiin sida caadiga migration iyo safaarad waxay hoos tagaan wasaaradda arrimaha dibadda marka ama wasaaradda arrimaha gudaha yaani wax toosa shirkad hoos taga maaha laakiin qofka guri iibsada wuxuu xaq u leeyahay inuu familkiisu la noolaadaan ee u yimaado laakiin cilado yar yar ayaa jiri kara ciladahaas yar jiri kara waxay yihiin waana ka caawinaa ummadda مثلا qofka guri iibsaday markuu guriga iibsaday wuxuu yiri waxaan joogaa Soomaaliya wakaaladu soo samaystay safar loogadeed loo geeyay guriga waxa la weydiiyay su'aal ah maxaad ku noolaanay marka waxyaalaha soo wax ka caawina qof sida uu ay tahay inuu akoonkiisa lacag ugu jirto waxa uu la tagayo safaaradda la tagayo waan ka caawinaa laakiin sida saxda waxa awoodda u leh waa safaaradda oo safaaradda iyo awoodda leh qofka rabtana weydiidi qofka rabtana way ogolaan laakiin waxa wadanka caamka ah oo sharci ka ah oo sax ah qofkii guriga gata gurigaas oo ah dadka uu guriga u gado inay guriga qaadaan mesela hadda tiraahdo 10 qofoodaan wata 3 qol iyo fadhiyaan iibsanaya waxa laga yaabaa ayada lafteeda in lagu weydiiyo su'aasha gurigaana dadka ma qaada marka sida darteed dadka talooyin siinaa waa la toosinaa dacwooyinkana waa la xareynaa 190 way soo qaateen fiisiyaashoodii wayna soo degeen haddii qof wax ka qaldamaana waxaan leenahay lawyer la saxa waxa ka qaldamay oo dacwadiisa la hagaajiyo insha Allah waa tahay marka laga soo tago guryaha deegaanka ah oo dadku aad ka iibisaan waxaa jira dad badan oo iyagana ganacsi ku haysta wadama reer galbeedka sida Mareykanka iyo Yurub oo doonaya bal maadaama Soomaalidu halkan ay soo degayso ku soo badanayso iyagana in ay ganacsi wax ka abuuraan marka ma leedihiin qaybaha ganacsiga wax loogu talagalay oo kale mise mustaqbalka ma ku tala jirtaan ismayaal ganacsi loogu talagalay oo kale oo Soomaalidu ay wax ku iibsanayaan arrimaha qorshaha meedii kugu jira aad iyo aad u mahadsan tahay walaal wadanka aad loogu soo socdaa ganacsi markii la yiraahdo laba qaybood
mid waa wadanka khayraadka uu leeyahay iyo waxa uu soo saaro in laga faa'iideysto oo ah warshadaha ku yaala yani wadanka warshadu leeyahay adduunka wax u dhoofiya birtu dhoofiya daqiiqdu dhoofiya dharka la dhoofiya kabaha la soo saaraa intaas faa'iidooyina asaguna wuxuu qaataa sida sidoo kale wadanka waa la keenaa marka business waa import export ku xiran businessna waa business gudaha businesska gudaha oo gudaha ka jira waa bilow fiican wada jooga hodheeladii la bilaabay maqaaxidii la bilaabay import export uu jira annaga ka shirkad ahaan shaqadeena 80% waa real estate aan dadka Soomaaliyeed aad iyo aad uga caawinaa runtii laakiin hadda way jiraan rajooyin badan oo aan soo wadno insha Allah taala laakiin marna ka hor dhacno business waa siyaasad marka waxyaalahan soo kordhin doona insha Allah taala laakiin waxaan leenahay qofkii raba service gudaha inuu sameeyana ummadii Soomaaliyeed service ay u baahan tahay way joogaan wayna soo socdaan qofkii doonaya inuu import sameeyana iyo export labadana waa la sameyn karaa waana soo dhaweynana insha Allah wax information ahna waa siinayna waa tahay ugu dambeyntii marka guryuhu runtii aniga waa soo marmaray gurigii aad dhisayseen iyo guryo kale iyo way kala qurux badnaayeen wayna kala isku qiimo ma ahay qiimuhu wuu kala duwanaa marka adigoo ka faa'iideysanaya dad badan oo ku fiirsanaya oo qaarkood niyada ay ku hayaan warbal guryaha imisa ayay u dhaxayn karaan kan ugu badan waa ilaa imisa kan ugu raqiisisan ilaa imisa noqon kara dadka ma u sheegi kartaa nadar waxaan rajaynayaa in arrintaas inaan naga dhaxdhaxadin doonto anaga Soomaalida waa su'aal shorta loogu dhibka badan waxaan sheegnay guryo 30,000 iyo 28,000 waxaan sheegnay guryo 250,000 waxaan sheegnay guryo 100 ah kuwa 95 kuwa 50 inta waa sheegnay laakiin qof kasta wuxuu ku dhagay guriga ugu qurxoonaa iyo qiimaha ugu yaraa marka waxaan rajayn doonaa in arrintaas aad garsoore ka noqon doonto waxaan rabaa marka anoo fursadda ka faa'iideysanaya walaalaha Soomaaliyeed u sheego guryaha waxay u dhaxayaan 30,000 ilaa 250,000 intaas u dhaxaysa guri walbana wax loogu xishuuleeyo guri waa fillo waa 2 dabaqo is saaran ama 3 dabaqo is saaran kaliga iskale koryoos baadaale dabaashii uu leeyahay jimkii uu leeyahay waxa loo service uu leeyahay guri waa guri ku xiga waa guri isteedo xiran security uu leeyahay dabaashii uu leeyahay barxadii uu leeyahay basketballkii uu leeyahay masaajidkii uu leeyahay quality-giisana waa 7 star gurina waa guriyaha normaalka la yiraahdo yani halka normal daa'ira laga yiraahdaa waa guriyaha aan Yurub uga noolnahay waa naqaanaa waa guriyii 90 sano dhisnaa laakiin oo cusub laakiin waa guri la yiraahdo qorraxdana ka gal qabowgana ka gal yani waa guri lagu noolaan karo laakiin wax service ma laha wixii service banaanka u doonanaysa waxa laga yaabaa inuu guriyahaas kala qaaliga kuba quality dhamma kuma awood dhamma inta service leeyin ma laha waana marka hadii oo qofku yahay qof la war caruurta xangaangeeya 35 ilaa caruurta hadduu qofku doonayo guriga ku raaxaysto oo ku noolaado hadhowna la mid ah lacag dahab gashadayna guri fiican oo 100,000 90,000 80,000 la iibina hadduu rabo qof dhalasho doonayo guri fila u baahan oo banaanka u baxsan oo labadiisa baabuur haysto hadii xaajiyadu ay xanuunsato hadduu odagu maqan yahay kuwaasna guri 250 aan hayna markana dhaxdhaxaad adaa goobta arkay su'aashaas waa aad inoogu adkaatay qof walba wuxuu rabaa guriga ugu qaalisan iyo qiimaha ugu yar marka arrintan naga dhaxdhaxaad codsiyana waa tahay waa ku soo noqon doonaa farxaan waxaan jecelahay daawadayaal inaan markan idin soo gudbiyo qaar ka mid ah macaamiisha shirkadda Guuleed Real Estate oo guryaha ka iibsaday bal inay noo sharaxaan sida ay guryaha markii ay iibsadeen kadib u degeen nolosha ay la kulmeen iyo sida ay iminka xaaladoodu tahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام waxaan u mahad celinayaa shirkadda Guuleed oo runtii si sharaf leh noo soo dhaweysay dadweynaha gadanayay guryaha aad iyo aad aan ugu mahad celinayo soo dhaweyntooda qiimaha badnayd markii aan dib ugu laabto soo dhaweyntaas bilowgeedii waxaan ka mid ahaa dadkii aan kala aqoon ee ka soo wacay dibadaha isla markaasna ay yiraahdeen soo dir daal ku tigidhkaaga iyo saacadaada soo sheeg waxaan aad ugu mahad celinayaa waxay naga soo dooneen aeroboortka waxayna geeyeen hotelkii
waxayna wareejiyeen guryihii nuucyaasha badnaa ilaa aan ka helnay dadka iyaga wada socday guryo aan ku qanacno waqti dheer ka bacdi guryihii aan ku qanacnay baan gadanay ilaahay mahada ka gaartay waxaan is leeyahay shirkadaasi waa shirkad Soomaali u soo baxday waxaan is leeyahay sanadada soo socda wax badan bay Soomaaliya ku soo korin doonaan deganaanshaha dadka ay dejinayaan ha ahaato soo dhaweynta ha ahaato fahanka dadka ay fahansiinayaan qof walba wixii duruufaha markaas istaakol ku ah way awoodaan oo qabanayaan ha ahaato waxaan leeyahay shirkadaas aad baan ugu mahad celinayaa runtii waxa kale oo aad ugu farxay dadkii wadanka u dhashay Turkida ahaa markii ay nambareen oo hadaa la ku roonyahay ku laftooda ay soo dhaweynayaan oo wax allaale wixii markaas ayaga laftooda aan uga baahno aan noo qaban karaan ay noo qabanayaan marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed shirkadan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ilaa arka waxaan rajaynayaa qofkii walaalo wax ka gatay sidaan u arkay inuu u arki doono dhul badan oo tira badan oo kala meel ah oo hal meel ahayn oo meesha rabtid ah yaa lagu geynayaa dooqaaga gurigaaga laga soo siinayaa haddaad mid badan rabtid oo guri waaweyn rabtid iyo haddaad dabaqyo rabtid iyo haddaad kuwa dubaal iyo xareed la rabtid iyo haddaad rabtid ilmo yar haddaad wadatid oo rabtid meel ilmaha yarka ku ciyaaraan iskuulkii meeshii ilmaha ciyaarta dubaashii waxbarashadii iskuulkii intii is saaran guri korkiisa haddaad rabtid iyo haddaad rabtid meel cillaah filla ku taalla inaad ama dabaq ku yaal inaad degtid intaba shirkadan waa ka helaysaa runtii inta hadda aan joogay waxa qalbigay aad ugu soo laalaabatay shirkadaani mar hore maxay imaan weyday sababta waxa weeye dad badan oo meel kala guriga ka gatay oo guryahaas aan is leeyahay dib bay ku qabeen ayaa jiray laakiin ilaahay mahada ka gaarto ma noqon kuwa ku qasaaray inay meel kale ka gataan ee waxaan ka mid noqday dadkii nasiibka u helay inay shirkada guuleed ka gataan guryaha ilaahay baana mahad iskale magacaygu waa Foos Cabdi Afrax waxaan deganahay wadanka Turkiga magaalada Ankara shirkada guuleed real estate waa shirkada ugu caansan wadanka Turkiga oo waliba Ankara ee guryaha gada waa shirkad amaan ah shirkadan cid alaale cid guri u gado sabrloogadeeda iyo waxeeda si amaan ay ku heshaa kuna qaadataa waxay u haysaa amaan gelin iyo soo dhaweyn waa shirkad aad iyo aad dadku amaan geliso waa shirkad lagu kalsoonaan karo waa dad amaan ah oo sharaf la ayaa ka shaqeeya oo madax u ah shirkada guuleed real estate ma sha Allah aniga waa amaana waan shirkad wanaagsan waxa aan leeyahay ma sha Allah lama soo koobi karo warna lagu soo dhameyn karo sida ay guryaha u iibiso ama dadka ay u soo dhaweedo si kalsooni leh ku iibsano guryaha si kalsooni leh waxayna ku helnay si kalsooni leh waxayna ku qaadanay si kalsooni waa ku deganah wadanka Turkiga qaasatan hadaan intaga hadlo wadan aan inaba caadi ahaan waaye markii Kenya ama Dubai loo fiiriyo Soomaalida degan ama Ethiopia ba ha ahaato ama businesska kule Turkiga waa wadan hadda Soomaalida aad iyo aad ugu soo qulqulay waa wadan Islaan ah waa wadan awlaad lagu korsan karo waa wadan miishadiisa ay raqiis tahay waa wadan ma sha Allah waxbarashadiisa wax fiican ay tahay inta laga helaa meel kasta loo qasto ka baxay masaajidka hortaga masaajid uu imaam diiniga ku baro culimadii oo dhan hadda way soo socotaa waana soo degeen insha Allah Kenya iyo way ka hormari doontaa meel la mid ah dadka degan way ka soo guuri doonaan biidnillah sida aan rajaynayo marka walaalo badan oo ku soo dhaweynay haddana way soo socdaan wayna soo dalbadeen insha Allah khayrka Allahna waafajiyo dhamaanteen meel kasta joogno waa tahay waan filayaa inaad si weyn u garateen dadka Soomaaliyeed ee kamid ah dadka soo degay magaalada Ankara ee guryaha ka gatay ee nolosha nooga sheekeynay ugu dambeyntii marka waxaan maraynaa gabagabadii Farxaan waxa ku jiray intii aan joogay halkan hadalladaadii markii aad furaysay dhismaha inaad guri cusub ama dhul banaan aad haysaan oo aad goordhow bilaabaysaan dad badan lacag kaasha lama dhiibo adduunka hal mar qof wax gataa wuu yar yahay sida Yurub ka timid aniga waa ka imid dadka inta badan waxay jecel yihiin inay guriga lacago iska sii bixiyaan marka 8 bilood uu dhamaadana ay wixii ku dhamaadaan taa adinku ma idinka suurta gali kartaa qaabkaysa hadii ay suurta gal tahay dadka aad u sheegaysaa inay qofka uu isaga bixin karo lacagahaas maadaama dadku ay niyadooda ku soo dhacday dhul banaan oo aad dhisaysaan mar dhow dad badan ay danaynayaan
waa mahadsantahay walaal nadaar aad iyo aad aan kugu mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad arrinta ku saabsan baleen paymentiga ama qofku inuu baleen samaysto uu rabo inuu asagoo gurina helo lacagtiina uu iska yaryareeyo laba weji weeye weji hadda waan ku shaqaynaa wuxuu yahay gurigaa la dhisay oo kale ama midka hadda la dhisay dadku waxay sameeyeen 30% iyo iska bixiyeen percentage-ka lacagta lagu heshiiyey 30% iska bixiyeen lacagtii kalena waxay yaryareeyeen 8 bilood ama 9 bilood oo dhow oo gurigaanu socday hadba sida ay rabaan u bixinayeen waliba ma la qasbayn oo lama oranayn bil walba inta bixi qofku asaga soo hadlay asaga lacagta soo diray haddeer oo aan joogno iyo qof walba wuxuu qaatay safar loogadiisii hadda fayl ugu jiraan macaamiisha wada jooga qof walba safar loogadiisii u qaadanaya lacagtiina waa iska dhameeyay marka guriga dambana sidoo isagaas ku sharci yahay qofkii maanta guriga qaataa 30% u dhiibay lacagta kalena 8 bilood ama 9 bilood waxaan hadda soo wadnaa mashruucan mar dhow insha Allah taala aan rajaynayno bangi islaami aan ka wada shaqayn doono oo aan qofka raynta ay saraacayn ilaa 5 sanana oo gurigaas iska yaryarayn doono insha Allah taala marka percentage-ka uu bixin doono uu horumarin doono iyo guriga muddada uu socon doono dib iyaan kasoo sheegi doonaa insha Allah taala laakiin hadda process waxaan ku jirnaa aan rabno inaan mar dhow ugu bishaareyn doono macaamiisheena inay heli doonaan guri oo bangi u iibinayo asagoo wax shuruudo lagu xirayn oo ahayn inuu percentage-kaas la baxo qof sharci wadanka ku soo galay uu yahay bangigaasna akoon uu ka samaysto lacagtana uu akoonka ku xiro oo bishi bixin karo waa tahay daawadayaal inta aynu kusoo gabagabaynaynaa waraysigii koobnaa ee aanu kula yeelanay xafiiskiisa agaasimaha shirkadda Guuleed Real Estate ee magaalada Ankara xarunta wadanka Turkiga mudane Farxaan Dhoore iyadoo shirkaddan ay ahayd shirkadda kaliya ee iyadu maalgelinta weyn ku sameysay dhismayaasha Soomaalidana ka iibisa farxaan aad buu mahadsan yahay waraysigan uu naga oggolaaday farxaan aad baa u mahadsan daawadayaal barnaamijkii waa naga intaa waxaa barnaamijka kaamirada iyo farsamadaba gacan weyn iga siiyey darwiish anigoo nadaaraan waan idinla socodsiinay inta aan barnaamijkan lamida ku kulmayno meel kastoo aad joogtaan sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu